afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan ayaa faahfaahin guud ka bixiyay sababihii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibraahim Muudi loogu diiday inuu tago degmada Baraawe isagoo mar kale u sharaxan kursiga xildhibaan ee uu ku fadhiyo. Afhayeenka warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in Cabdiwali Muudi aan isaga loo diiday inuu aado degmada Baraawe balse laga hor istaagay ciidan fara badan iyo hub culus oo u watay magaalada Baraawe oo ah halka ay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ay ka socoto. Waxa uu sheegay in amniga degmada Baraawe uu yahay mid sugan oo ciidankii ugu badnaa ee sugaya amniga la geeyay haatanna aysan u baahnayn in ciidan fara badan lala tago. Waxa uu afhayeenka hadalkiisa intaa ku daray in Cabdiwali Muudi loo ogolaaday inuu wato ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraya ilaa iyo 5 askari maadaama Baraawe amnigeeda si weyn ay u sugayaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Ugu dambeyn afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan waxa uu sheegay in musharaxiinta aadaysa doorashada kuraasta golaha shacabka loo ogol yahay ilaaladooda gaarka ah oo gaaraya ilaa iyo 4 iyo 5 laakiin wixii ka badan aysan aqbali doonin ciidan wada saanad military. Eelboorka aadan cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed. ciidankiina la hakiyay markii dambena la ogaaday inuu wato gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muudi laguna wargeliyay in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5 ilaa 4 sababtoo ah Baraawe waa deegaan xasiloon waa deegaan ammaankiisu sugan yahay ayna gacanta ku hayso dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo uu horeeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo wakiil ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka. warkan ka soo baxay booliiska Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli shalay Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudi loo diiday inuu tago degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ka socoto doorashada golaha shacabka.